ciidanka deegaanka ayaa hal gaari hadda gubay waa kuwa halka ku gubay gaarigii waa arkaysaan halkaasaan ku gubnay halka oo aragtaan gaariga ku gubanay waaniga soo dhaweeyay ninkii gaargaaro waraabsanaya shaqadiisii haysta unadii dabeecayuunka leynaya بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يا صاحب يا هالكني وبرتان كلنا يوتيوب كنا قرنك تي في يسيدو كله برتنا فيسبوك هدي أنا عصبت هاي برتنا فيسبوك فلوده مقال كان سيفوجي أو سيتوريا داود waxaanu idinku soo gudbin doonaa xoogihii ugu dambeeyay ee dagaalkii maanta ka dhacay ilaa iyo 4 jiho ilaa iyo markaasi maraaga bariga magaalada Laascaanood galbeedka ilaa iyo Tuulo Samakaab oo dagaalku maanta haystay ayaynu warbixintii ugu dambeysay iyo sida ciidamada maamulka Soomaaliland ee ugu go'een aanu idinku soo gudbinaynaa fadlan haddii aad ka mid tahay taageerayaasha markaasi ciidamada xaq ku taagan ee RSC ee dalkooda iyo deegaankooda lagu soo duulay muuqaalka ha hilmaamin inaad si faafisid si share gare oo la wadaag saaxiibada una dir sida ay u go'een nimankii SNM aha maanta duulaan gardaraa ayay maanta ilaa iyo dhowr jiha ku soo qaadeen aaga maraaga oo ciidamo xogaayo jimcaale uu ka baxay balse ciidamo aad u badan ay joogeen oo isugu jira beelaha ma jirteen jifooyinka la gedisan oo ay ka mid yihiin markaasi ciidamo taangiyaal wata oo mudug ka tagay iyo sidoo kale markaasi ciidanka Ciise Maxamuud laftigooda xataa xogaagii Aaranjan ay la bixin ma ahan ciidamo badan ayaa halka ka joogay iyo sidoo kale ciidamo aad u fara badan oo kale ayaa goobta xaadir ku ahaa markii ay weerareen kooxda oo ay isdheheen la wareega aaga maraaga laakiin maxaa ka raacay si aada ay ugu go'een meesha dhinaca kale daawadayaal buurta hodan iyo ateenadii gooja cadde ayaa maanta la iskula daadegay dhinaca kale daawadayaal Tuulo Samakaab oo ay weerar ka soo qaadeen maadaama lagu dhawaa ayaa ayadii dib inta loogu celiyay baa waliba laga qabsaday maanta ciidamadooda waxa ay marsadeen meydkii dhaawacii waa wado daadega ay marsadeen way u shaqay weysay inay mar dambe halkaas dabcan ay daawadayaal ay maraan dhanka marka la eego khasaaraha dhabansaar weerarkii ku soo qaadeen horta aad bay u eedeen halka waxa la xaqiijinayaa ilaa iyo 70 nin inay uga dhimatay meeshaas oo waliba ay si baan ugu go'een oo dhabansaar xabadii ka dhacday meel banaana ayay weerarka ka soo qaadeen difaacayaana loogu jiray markii ciidamadii meesha deganaa ee hore gurmud baa ku gaaray waliba markii hore cagta la mariyay nimanka meedadkooda waxa lagu leeyahay qiyaastii 28 nin oo meedad ah ayay meelaha uga carareen oo hadda waxa muuqaaladan soo gaaraya ay ku muujinayaan baaxadda nimankaasi iyo khasaaraha ku dhacday iyadoo meedadkii ka carareen teleefanada iyo rasaastii silsilada ay uga carareen laga kor guranayo ayaad arkaysaa oo markaasi waraabihii ayay markaasi uga tageen dhalinyaradii oo uga carareen runtii inkastoo inaynu aasaan aynu ka codsanayno ciidamada xaquudirirka ee mujaahidiinta ee SSC way ka jafeen meeshaas runtii weerarka halka ay ka soo qaadeenna way eedeen waayo mar walba oo qofka weerarka ah dabcan isaga ayaa jabaya oo waa la iska dareemaya ninkii difaac ku jiray markii ay jabiyeen biyo raacis waxa la dhahay sameeyeen oo Tuulo Samakaab caawa waxa ay gacanta ku jirtaa ciidamada SSC ay gacanta ugu jirtaa dhaawacoodii og aadi jiray waxa uu ka wareegtay daawadayaal dooxooyin iyadoo wali waqti iska xil roobaada uu ku jiro dhulka dowladda iyo wadooyin kale oo rafa inay maraan ay danta ku kaliftay gabi ahaanba wadadii saadka iyo laamiga ku xaragoo jireen waa la soo aftir waxa sid mudan daawadayaal goobtan iyada ah in ciidamo markaasi ka amar qaadanayay in cambaashe oo joogay ee carareen oo dhanka Yogori ay u carareen isla markaana daawadayaal ay markaasi ayaga laftigooda lafahooda u carareen oo dhanka og xigta ay u carareen waxa kale oo la soo warinayaa hub iyo qalab ay lahaayeen beesha jaamac siyaad oo ay ku jireen suugay in laga furtay in cambaashe laftigiisa waxa kale oo la soo warinayaa in ay jireen dhalinyar iskaga soo baxsatay in cambaashe oo yar oo ku harsanaa daawadayaal gula aad u waaweyn ayaana laga soo hoyay runtii waxa la leeyahay khasaaraha dhimashada aagaas ka dhacay kaliya waa 70 ayaa la leeyahay ilaa iyo 34 nin oo kalena way jiraan waxa la leeyahay wadarta guud ee ciidamada SNM dharbaaxadii maanta ku dhacday marka la fiiriyo waxa la leeyahay celcelis ahaan 104 nin baa ka geeriyotay dhaawacuna 150 buu kor u dhaafayaa waxaana jiray saraakiil amaanduulayaal korneylo gaashaalayaal sare iyo gaashaalayaal dhexe oo meeshaas ku go'ay oo markaasi daawadayaal ku baabay qaybtood laga cararay
waanu idin soo gudbin doonaa raggaas iyo magacyadooda iyo sawiradooda saacadaha soo aadan dhanka RSC khasaare waa u jira runtii laakiin khasaaruhu waa uu ka kooban yahay wax aad u yar ayaa markaas rag aad u kooban ayaa kaga shahiiday meesha inkastoo dhaawacna uu jiro xogaa dhalinyarana way ku dhaawacantay mujaahidiina laakiin iyagu mar walba waa u bareereen arintan oo waa nin hadduu dhintana jannada ku galaya sida culimadu ay xaqiijiyeen haddii uu waxa weeyaan noolaadana sharaf ku noolaanaya hadduu dhaawac noqdana daryeel aan caadi ahayn helayo xaraga dagaal oo waxa weeyaan isku saaran tahay halkaas kartan kale markaas Muuse Biix Cabdi Taliska hoogay ee dhaqaalihiisii u burburay gaajo ay meesha ugu dhinteen kadibna xabad biyo raacisana loogu daray oo dhibaato culus ay haysato waxa xusid mudan meydadkooda in waraabaha uu bartay oo ay markaas hore la xasuusto dhalinyar badan oo ay meedadkooda ka carareen xataa meedadka iyo dhaawaca way ka cararayaan in ay waraabo u ka dhargay haddana tiyo kale ayaa sugaysa ayaa la leeyahay haddii aysan dadka reer SSC aysan u naxariisan oo aysan xabaalin dhalinyarada laga cararay dhanka dagaalkii laascaanood ka dhacay maraaga daawadayaal waa la bursaday durba ama waa la ceyrsaday waxaana lagala wareegay fariisimo aagag ay ku sugnaayeen iyadoo ciidamadii ay isku fidiyeen ay islahaayeen waa yaraadeen ciidankii ayagaan ciidankooda qaybsamay marka wax isku khaldeen awoodooda iyo awoodda wax isku khaldeen ka soo horjeeday reer SSC meelo badan ayaana laga qabsaday meesha ugu darneed waxay ahayd galbeedka magaalada laascaanood halkaas oo runtii niman jilba adag ay u fariisteen isla markaana ay kala wareegeen dhulal hor leh ilaa iyo daawadayaal wadooyin ay ku xisaabtamayeen inay ayagu qabsadaan ayaa dib looga sii sikiyay oo laga riixay godka gooja cad dushiisa ayaa caawa markaasi daawadayaal nimankaas lagu korshubay oo lagu kor caaweynaya runtii waliba lagu kor kifaaxaya ciidamada gaaraya aaga Tuule Samakaab laamigaas inay xiraan ilaa og inay gaaraan raba ilaa Yogori ayaa iyagu sii badanaya oo gurmadyo hor leh ayaa lagu daabulay halkaas daawadayaal waxaana muuqatay reer SSC in dulqaadkii uu ka dhamaaday oo markaasi ay awoodoodii maalintii koowaadba ay muujiyeen si aan caadi ahayn waliba waxaana la leeyahay dagaalku inta kuma istaagi doono maalmahanba weerarada inay qaadi doonaan ay ku tooqeen tan iyo inta taaka dhulkooda kamid ah ay sii joogaan ciidanka jabhadda SNM kuwaas oo haatan ayaga laftigooda kala shaki iyo isku dhacyo dhexdooda ah ay jiraan oo markaasi aan isku wanaagsanayn runtii marka la fiiriyo wararkan daawadayaal ugu dambeeyay maanta waxay ku tusinaysaa khasaaraha baaxadda leh ee SNM maanta kaliya ay qaadatay inay tahay runtii arin jab ah iyo urkutaala ah inkastoo dhalinyar Soomaaliyeed runtii dhimashadooda ay xanuun tahay oo dhalinyar Soomaali ka dhimanaysa ay yihiin haddana ka taga dadka guryahooda ayaa laga kari waayay runtii waxaana taasi ku tusinaysaa in markaasi aysan markaasi dagaal xaq darro ay ku jiraan mar walbana waa kuwa jabaya sababtoo waxay tahay dadka deegaanka iyagu waxay ku kalsoon yihiin geeri iyo waxa weeyaan iyo nolol intaba in ayagu waxa weeyaan wada xaq ay ku taagan yihiin waana la geeriyoonayaa nin noolaanaya maba jiraba marka ninka geeridu ay dhibayso waa ninka waxa weeyaan la soo raafay runtii la soo khasbay la soo saaray guri uu soo dhalan la keenay gaari inta la soo saaray la soo gidhaashay gidhaash caadiya weeyaan marka askarta hadii ay isdhiibaan ciidamada deegaanku waa ay ka nabadgalayaan ayaanu dhigi karnaa runtii muuqaalkan si sheer gale oo si fogay fadlan hadii aad ka mid tahay taageerayaasha reer SSC waxaanu leenahay mar walba guul iyo gobonimo إن شاء الله جوش وحير باكدمن إن شاء الله هني كحد جد بناها مركز دول كينا قبستان ديجان كله يدول مركزي كله وبالله التوفيق.